بسم الله الرحمن الرحيم. walaalkayga khaaliga ahow iyo walaashayda khaaliyada ah meel walbo caalamka aad ka joogtid idageyso oo farintani aday kugu socotaaye ha iska gudbin oo cid kale ha ku tuurin. ibn Abbaas radiyallahu anhuma ayaa maalin wuxuu arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo waaninaya nin وحونا كيري اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. ودردارا ايوانو كسعة قف والبو امد محمد كمده الى قيام الساعة. وحونا كيري نبي ننكاسي كفا إليسو 5 أريمود او نولش على صومرا انتيسن كهليلين 5 كله او كلها ردونا وشن نعمة أو قيمة وين كله نولش بني آدمك أو الله أود يخ روح والبا أو هدي آدم كفائدة سنين دب دم بأو أركينين وجو حيكون دافي دونا سده بينكي حالي أو تجي مسؤولين كرتا حالي وسؤاله جواب تاسي أديك على سجايا دردارن كقوات كفائدة صدقني ماذا هذا انت هذا جبوبين أما أيسن كهلين دقنمو أو فديك الدر يدجال قبيلات أتكع الروضة أو تكد فوضى أذو دلية تمرتك وجرتا هكود من ملعت الله إيه كفائدة سو دتكاغ يدلكاغ وفائدي أو هاي ريسن وناجا أد أمد تركرتو مستقبل في عندي سو أو تكبت بادو كنا ليبانتو الدنيا آخره دردارن كلابادنا كفائدة سو عافمات كاغا انتادن حنون سنة أما أيسن جروح كعوريا منين أو سريرتك سارين أو دخاقي كريويدو عافمات كإنتاد ليدهي نقر روح واحتر له سياد ونقطو كوا هرك الله قلي دونا نقو شاب نشأ في عبادة الله هسوغين إلا أي جروح كسو ويررتو أو يكو دبر قويسو مركاسي محي شلايتكو تري دردارن كسدحات كفائدة غني نمدادا كهر انت ايسان نولشادا دبولين فقر iyo saboolnimo ogow lacagta waa wax yimaada haddana ka taga oo ku dhaafa lacagta ku soo marta ha kala bakhaylin jimciyaadka khayriyada ah ka qayb qaado quudinta masaakiinta dhisid masaajid ceel qodis kafaala qaadid agoon sadaqa bixinta badso khayr walba oo ku soo mara ha ka gaabin inaad wax ku bixiso inta aadan gaarin xaalad faqri ah oo aad weydo xitaa xabad timir ah oo aad sadaqaysato. dardaaranka afraad ka faa'iidayso firaaqadaada inta aadan mashquulin ka hor ruux walba waxaa soo mara waqti yar oo uu firaaqo leeyahay loona baahan yahay inuu waqtigaasi firaaqada ah kaga faa'iidaysto wax manaafacaad leh oo nafsadeena faa'iido u ah ehelkeena faa'iido u ah dariskeena faa'iido u ah mujtamaca guud ahaana faa'iido u ah. haddaba ma ka faa'iidaysanaa waqtiga waa su'aale oo maalin walba quraan ma akhrisaa waqtiga firaaqada diinta waqti ma gelisaa inaad barato mise waa iskala weyn tahay ehelkaaga iyo qaraabadaada ma xiriirisaa dadka xanuunsan ma booqataa si adna lagu soo booqdo markaad xanuunsato deriskaaga ma tustaa quruxda islaamka mise waxaad aaminsan tahay gaalka xaq deris kuguma leh mise firaaqada waxay kaaga dhuntaa ood ku dishaa killing time sida ay yidhaahdaanba si aadan ogayn oo buufis xan iyo warxumo tashiil aad bulshada ku samayso ilaa la waayo qof wanaag wada ogow markaad mashquusho wax aad ka gaari karto ma jiraan. dardaaranka shanaad ee ugu dambeeya wuxuu soo koobayaa maqsadka lagu abuuray ka faa'iidayso noloshaada inta aadan dhiman oo xabaalaha lagu geynin. ogow qof walba waxaa soo marta cimri xadidan oo uu nool yahay waxna qabsan karo kadibna waad geeriyoon waad dhimanaysaa waxna ma qabsan kartid oo adigaaba u baahan cid ku qaada oo ku dhaqda xabaalahana ku dhex dhiga godkaasna lagaaga soo tegi doono adoon awood lahayn aan dhaqaaqi karin. walaal noqo qof caaqil ah oo ka faa'iidaysta dardaaranka uu siiyey nabigan ku jecel oo raba inaad deriskiisa noqoto fil firdaws al-a'la insha Allah. maanta laga bilaabo ha sugin daqiiqad kale haddaba ka bilow oo fariinta gaarsii walaalkaaga aad jeceshahay.